kadib markii 12 dhibcood laga jaray kooxda Everton lana geeyay kaalinka 19aad ee kala sareynta EPL-ka. Manchester City iyo Chelsea waxa ku bilowday baaritaano horeba ugu socday, waxaana tani ay bilow u tahay ganaaxyo culus oo la dul dhigi doono kooxaha Chelsea iyo Manchester City. Haddaba taageerayaasha kubadda cagta ayaa haatanba ka sii hadlaya sida uu noqon karo ganaaxyada ay wajahayaan labadan kooxood. Ma dhibco kaliya ayaa loogu ekeynayaa horyaalada heerarka hoose ayaa loo ridi doonaa mise kooxdan koobab ayaa xitaa laga qaadi doonaa? waana marka loo eego waxa la iska weydiinayo dhibaatooyinka ee Manchester City la kulmi doonto haddii 115 kiis oo loo haysto ugu yaraan 10 kamid ah ama 20 kamid ah lagu helo. waa 115 kiis kooxdii lagu qabsado. xaqiiq waxa ah in ugu yaraan mid kamid ah lagu helayo oo 115 kiis wax yar ma aha. Everton kaliya halkiisa lagu qabsaday, waa qirteen dibigana waa lagu qaaday, laakiin iyagoo la haatan waxay leeyihiin racfaanan ayaa ka qaadanaynaa, laakiin macquul maaha. iyagana xerar badan loo fiirshay oo xitaa qiraalkoodu ka mid yahay. marka Manchester City iyo Chelsea maxay la kulmi karaan haddii Everton oo hal dambi lagu helay 12 dhibcood laga jaray? aragtidaada ila wadaag.